isligeed waa cusub markaan arkay ama aan arkay hadda xaaladda lagu sugan yahay sida ay u dhaqmayaan waxaa soo keen dambeysay 2 sano ka hor kan la joogay waa cusub Mareykanka iyo midaan waqti fiican ku wada qaadana wuxuuna sheegay inay Mareykan ugu tageen maadaama kooxdiisii uu ka tirsanaa ay ahaayeen waxay ugu tageen Mareykan sida anaga la socono waqti soo wada qaatay wayna ka soo laabteen. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الكلية أركتان كل واحد فيلم دونتان رياكشن أصحابك اللي وحير ما ركت بيزي بس كجرا شغلة أسكبدان قف بمر بمشغول كوي هاي مركا وحان جعلستينا رياكشن كبحيو هستي وهيها عصر يفعل علنتي معناها الجوابها اللي كبحيا ربائنا معناها إذا لو ذاقو وحأسوا جوابتي sida macnaha wararka la isla dhex orday ama ma aragtay waxyaabaha hadda la wadaday la bumbuuna waxa kamid ah farxiye ka weere oo u soo jawaabtay waayaha cusub haye xidigii hore ee ma aragtay odobahalka ahaa dikriyo oo macnaha page-kiisa Facebook soo dhigay in uu macnaha heestaasi lagu macaaradayo dawladda Soomaaliya inuusan asaga kamid ahayn ku cadeey waxa kale oo cod macnaha ku qeexay isagana dalmaryare oo dhahay aniga kamid ma ihi maadaama ay ku kaceen inay dawladda macnaha mucaarad ku noqdaan oo ka hor imaadaan waayaha cusub aniga kuma raacsani kamidna ma ihi waxa hadda ka dambeeyo waliba asaga kaliis kama hadlayna wuxuu u hadlay annakoo badan kamid yihiin فليس منا يا marka waxaan ka bilaabaynaa farxiye ka weere iyo waxay ka dhahday waayaha cusub aniga ida ma dhinte waayaha cusub farxiye ka weere aydan dhah سبحان الله no جوابنا كنا بروحاس no بنشوابنا يا ما فحنا يا أنا فرحي كبير الروح رعت والله إكسبريس كله عني نعلى شيء دمكو يلا ونعمل ويا عصب حالنا هاي كوي ما عرفت ما لحظة تغير الله ينكره لا سبحان الله dislike dadka ku filan kuwaas كلها أنا أقول جوابه لقى ما بهنا هي dislike تشعب كعبة كلها نعلى شيء دمكو يا رور فرحية كوير عادي ما حرفان نجاو أميرة أضبان كده أكتاجن بحب التاجين هاي channel كده مركو ولا حرة نيو Soomaali waxaan kaga yaabay haday macaarad ku noqdaan waxba ku mareeyaan express ku raacaan xidigaha waayaha cusub waxaan leeyahay maadeereelo inay ma fiicno kulli waa aragteen Soomaali falcelinta ay ka sameeyeen heestii aad soo dhigteen waxaan ilaahay aan booshka ka dhacday inta video soo duubtaan iska dhahay maadeereelo waan qaldanay nagu qaata idinka ka dhalanay ilan shiinas ma ka dhalanay Soomaaliyeed ka dhalteen soo moogidin أنا واقعد صلوا أنا ما عرفت إسكسر توبت كنت أنا على شيء دم كوير عرفان كي وعمري فرحين كوير أنا نفتي قاعد كلها جانا كنا مرلو ولا حربا وحنا كلو جود بينا فرحين كوير وحيد هذا يدي يعني قام الشباب ودي وحكى بدن بس لايك تا الشعب كولا فرحين كوير أنت سكيدي بتي وحكى لو قلنا إن حدي جوهرة كريو وبرتيس فيسبوك صور دقي inuusan raali ka ahayn heestaasi ay soo gudbiyeen waayaha cusub bal dikriyo wuxuu dhahay idin akhriyo wuxuu soo dhigay maadaama qoraal ay tahay oo san video aysan ahayn waxaan jeclaystay inaan qoraalkiisa idin akhriyo wuxuu dhahay anigoo dikriyo cabdi cilmi ah ina cabdi cilmi oo ku soco kana mid ahaan jiray ama kana mid ahaa aas-aasayaashii budhigayaashii kooxda waayaha cusub kooxdaas oo ujeedkeeda ahaa aas-aaskeedu ahaa in lagu wacyigeliyo ama lagu dhiirigeliyo shacabka Soomaaliyeed taas meesha ka baxday maadaama ay taas meesha ka baxday waxaan bari ka ahay foolxumada soo socoto
nafteyda shacabkayga Soomaaliyeed waxaan ugu tacsiyeynaa magaca waayaha cusub ee aan u soo halgamnay in ay aniga macnaha wuxuu dhahay asaga wuxuu ku qeexay meeshaas ninka digriyo macnaha aniga waxaan ka xumahay magaca waayaha cusub oo u soo halgamnay inay u adeegsadaan siyaasad ama macnaha waxyaabo aan loo baahnayn kamida raallina kama ihi kamidna ma ihi in xumaan loo adeegsado magaca waayaha cusub waxaanan u aas-aasnay in lagu dhiirigeliyo shacabka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed in lagu dhiirigeliyo aas-aasnay kulay ninkaas warkiisa waa cad yahay كمان محونا داي أنا كميت ميه فالحماضة صوصات فليس منا مع الله شيطان كويل رجال وكان مركي حمانته ما تو بناك كيستاو مركي وناقي ما أنا هردانك هو أما معناها نمبرون كا مركي قارة في إنجليزي مقاطع أو بعض وقاطع مركي وحنا كلام سيكون بين الدكري وما دام ساسو داي ده ولجيت كيس هو نوي هاي ده يعني فالحماضة صوصات ما عرفت كميت ميه waxaan u aas-aasnay waayaha cusub in shacabka Soomaaliyeed lagu baraarujiyo ee maaragtay farxamada soo socota kamid mid salaan ku leenahay legend adeertaana waxaan soo qaadanaynaa dalmaryare iyo waayaha cusub waxa uu ka dhahay waxaa jirta in waraysi lala yeeshay fanaanka dalmaryare taasoo uu ku muujiyay bal yaan idin hordhacina horta codkiisa aan dhageysano dalmaryare waxaa noo sheegay in muddo inay wada shaqayn ka dhaxaysay uuna ka mid ahaa aas-aasayaashiisa aas-aasay kooxda waayaha cusub waxaan ku leedahay waayaha cusub waxyaabihii la aasaasay oo aas waxaa ka mid ahayd waqti lagu jiray marxalada aad u adag ayaan waayaha cusub waayaha cusubna waxaan u aas-aasnu dhahay waqti lagu jiray macnaha xilliga dee waa fahmi kartiin asaasnay wadanku aad uu meel walba dadku walacay inaan dhalinyarada Soomaaliyeed qoriga wadatay aan ka wacyigelinay qoriga digaan sabab kale macnaha dee dagaalka iyo macnaha waxyaabo badan inaan ku xalinaa kooxda oo aas-aasnay muhiimadda waayaha cusub loo aasaasay meeshaan shuruucaan qoranay sharciyaan qoranay macnaha wuxuu sheegayaa in sharci rule and regulation ay samaysteen waayaha cusub inaana shaksi ku ataagaraynin fanku sidiisa wuxuuna sheegay muhiimadda ugu weyn ee u asaasnay kooxda inay ahayd in dhalinyarta hubka looga dhigo laguna ataagaraynin hal qof waa hanuuniye ma aha nagardaamo ereygaas waa iga gadan yahay legend dalmaryare sida laashilgeed waayaha cusub markaan arkay ama aan arkay hadda xaaladda lagu sugan yahay sida ay u dhaqmayaan waxaa suukan dambeysay 2 sano ka hor kan la joogay waayaha cusub maraykanka iyo midaan waqti fiican ku wada qaadanay wuxuuna sheegay inay Maraykan ugu tageen maadaama kooxdiisii uu ka tirsanaa ay ahaayeen waxay ugu tageen Maraykan sida anaga la socono waqtiga soo wada qaatay wayna ka soo laabteen quraanka nagi asaasa iyo magacaan waayaha cusub oo asaasnay in runtii la xumeeyo oo si xun loo isticmaalo aad iyo nolol xumaatay macnaha dee maadaama aan dad ahayn rule samaystay dee wax isku og kooxdan oo aas-aasnay inaan ummadda Soomaaliyeed ku baraarujino oo aan qof lagu ataagin dee maadaama tii ay dhici weysay bal wuxuu ka dhaha arkayna anagoo badan weliba keligii shaksiyan kuma hadlayo anagoo fara badan marka waxaan qaadanay intii maxaan ku leedahay magac annaga shaksiyadeed oo faneed uu sii ijaafoobi lahaa inaan waayaha cusub banaanka istaagay wow wuxuu dhahay kulley dee annaga maadaama aan ahayn dad wanaag ku midoobay maadaama xumaan ay bilaabatay intuu magaceena hoos aadi lahaa inaan banaanka istaagno legend waxaan leenahay dalmaryare warkiisa waa cad yahay saas darteed banaanka waxaan kaga istaagay dhahay maadaama xumaan iyo maaragtay foolxumo ee meesha kasoo socoto banaanka ka istaagay dalmarna waxaa kaloo jirta hees dalmaryare oo macnaha usoo qaaday sida dadka ay sheegayaan waayaha cusub kolley aniga ahaantii fikriyaanteeda lama ahan in waayaha cusub uu ku karbaashayo balse baraarujin bay u yar egtahay heesta marka heestaasaan rabaa waxyar ayadan inaan idinkaga taabto la socosho wanaagsan
weliba siduu rabo hay nin weliba siduu rabo suuroobi mayso macnaha qof kasta dee siduu rabo lama suurtagelin karo haddii mar maaragtay leeyahay jamac haddii leeyahay qof keligii laguma socdo waxaa lagu socdaa fikir wada dhan kala saar dadweynow soo ururintaadiyo waxbaa na ceyrsanaya saas darteed aan qaqabanaya ila socda sabanbax mid kula raba أنا حمانتي ما عرفت حيابي دروفته أنا كنت جرني هذا وكبحني وحير وصير إفتيني موجينا سهسته أنا دي حمانتي وحيابي أنا كنت حجرني الله نور بدري وحان أركاه ضروري وناقن أركا مركزته وحين كهذا معناها المريالي يعني ما دام عن فورماس بركة هاي أنا جو وحان أركا هيستو وحكو عبرها ما أهن صاحبتي سنو كرباشة هيستو وحكو عبرها إن فورماس بناك كتاعين هاي وأركي إن معناها الدولة الصومالية هاي تهاي معناها وحصو إفايو دولة صو إفيس دولة ولا وصعد مركب حاليا هاي إن ما دام أنا هاي بلانيرو هذا سوق عيسو حاليا أنا أهنتي فكركي وحاليا يعني اللي اسمه قبضة وحكونا سئل له يشيو حاليا تي قف بنادم كدو قلدمه وكسر من كرا وحالي له أهم وشوي كنعلا أنا قف بنادم وقلدم كرا ونكسر من كرا حاليا هاي وهي عصب إن ده كوبي ما عرفت dalkooda iyo diintooda iyo dadkooda anfacsi aad u muuqataan de inaad xumaanta ka soo laabataan oo wanaagga raacdaan shacabkii qofka bini'aadankana de waxaa wanaagsan in uu dadka iska dhex saarin kulley maanta in Soomaaliya oo dhan ay macaarado idinka dadka iska dhex saarin marka tooshka aad isku ifiseen haddana idinka iska damin kara Soomaaliya waa dad calool jilicsan qof qaldamo una soo laabta iskuma qabato marka waxaan leeyahay kubi soo laabta Allah inaan ka dhigo wal naf Soomaaliyeed meel kasta joogto haddii aad channelka ku cusub tahay fadlan subscribe saar gambalelka furo and the like iyo the share and haddaad naga dhisi kartin dhac ku sii